واندوهي ما شاء الله ما شاء الله abtee waxaan kaa wareysanayaa saaka maaragtay ciisihii oo meeshoodii iska fadhiya oo ku raaxaysanaya ayay maaragtay qoladii jabhaddii awdal isteeda afka xidhnaa iyaa soo tuurtuuray wixii ka gaadhayna waa loo joogay ilaahay dhibaataha naga hayo dhig bilaadanna ilaahay naga hayo maxaad ka ogtahay adigoo u fara dhuudhuuman بسم الله الحمد لله الصلاة لله الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن سلام يا أمد الصوماليات الكدمة تباجوكت سيخا سنة ما ضربتي صومالي اللاب إيو ما ضربتي قول كان عوضل إيو وحكا جوغة انت إيمان كالي صوبان ولا لمضى إيو طول لمضى إيو قرابة جعل أيان سلام يا انت كدب waxaan ku ogeysiinayaa oon ku sheegaya ninkaas janaqaalka ah yuusuf iimaan baa ladhaha waa reer maxamed intii ay somaliland intii ay calanka taagtay meeshaa gaarisa laba nin baa iskaga dambeeyey ninkii u horreeyey wuxuu ahaa xaruun baa loodhan jiray babar musuuha kan baa ku xigay waa reer maxamed labadaa nin madaxase waxaa meesha loo keenay waxaa loo keenay inay dubbe madaxa kala dhacaan ciisaha dhukaa jooga ayaa loo keenay ninka keenay iyo isagu waa waxay ku soo heshiiyeen baan odhan karnaa maye waxaan odhan karnaa reerka madartay madaxase abtiga isku nahay beriyii hore aad iyo aad layskugu macaanaa maanta saweelkii iska ciideeyey markii anagu aan macaanin iyaguba khadhaadh bay ahayeenoo labadaa nin iyagaa somaliland ka dalbaday inay geersa la keeno kii hore marka uu ina xadhu meesha hawlgabeen noqday kan baa la keenay waxaa la yidhi maad aragtay dee kii tagayna maad aragtay waa waraabe kan joogana waa dhegti waraabiya dhegti baa le labadan waxaan ku sheegaya maanta waxaan dhacay yuusuf iimaan iyo jabhadda gadabursigu waxbay isku ogaayeen nimanka gadabursi waxay tijaabinayeen ballankii ay yuusuf iimaan la galeen ayay tijaabinayeen waxay la galeen nin samaroona oo madaxasaa ma tahay nin noo hiilinaya ma tahay waan kugu ogay ninaad noo hiilin jirtay waan garanaaye maanta halkay kaa joogtaa tijaabay ahayd tijaabadii bay rasaas u tuurtuureen taas darteed iyo tijaabadiina waa ka qayb galay waa cararay isla markiiba maadartay wixii u bannaanaa ee ku ballameen buu sameeyey inkastoo halkaa aan dhimasho la ii sheegin dhaawacana la ii sheegin waxaa la isla qaatay inuu yidhi diyaar baan ni ahay oo waan ag joogaa inuu tii ka dhabeeyey ayay maadartay madax casuhu oo maadartay bahabar celi sidaas bay maadartay u guddoonsatay oo waxaa la yidhi ninkaasi waa tolkeen maadartay waa noo diyaar ninkaan waxaan ogaa aan hore u ogaa jabhaddana isagaa xakuma gadabursiga ciidanka somaliland ee loogu talagalay awdal iyo selil isagaa xakuma iminka halkaa igu jooji hadalka halkaa igu jooji habeen dhow jabhaddan uu u tegey kolkuu u tegey raggan haddaad ciidanka xakunti ragga qabsaa la yidhi intuu u tegey ayuu yidhi way diideen kolkaa dowladda somaliland afkaygii baaba ka heshoonaya dowlade shalay toole nin ciisaa ayaa qaad la yidhi oo nin isaaq u keenay laba qoloo is haysa nin gadabuursiyaad laba qof baa isbedilaad leedahay kolkaa dadkan ma dad waalanbaa ninkani waa nin corruption la yidhi oo dhibaato badan kolkaad ciisuhu 3 dal buu degan yahay haye walaalkay waxaan ku sheegaya raggaas meesha iskaga dambeeyey waxaa loo keenay meesha waa khidad aad iyo aad aan u garanayno oo aan ognahay oo nimanka isaaqna way og yihiin xakuma ee dowladda iskaga dambeeyey gadabuursina ballankaas dowladda somaliland buu la galay wixii la bedelay dhulkan waa ciise oo la qaado haddii ay samaroni uu ka soo ashgatooda ninka ciise isla markaaba waa la qaada
maanta iyo xilligan la joogo waxay kala cadaan doontaa haddii shalay la qaaday oo la qaaday madartay cabdi عبد سعيد فايد madartay haddii la qaado tanna maanta dee imika ashkatadiisa ay maanta bilaabatay oo imika saacaddan sheegayno inaan la qaado ayaa qurxan waxaan u sheegaynaa qaada un maaha nacam somaliland hadday doonaysa inay labada reer nabad ay ku wada joogaan oo dowladda somaliland iyo calankeedaas madartay mid loo yahay ninkaasi wanaag ma soo sido raarta halkaa laga qaado xasa iyo ciise waa heshiis wax alla wax ka dhaxaynaya ma jirto maantase gadabuursigu halkaa joogay waa reer aabba leh aabbay leeyihiin janaqaalka u sarreeya ciidankan salil iyo madartay iyo awdal ayay leeyihiin waxaan ku sheegayaa anu ninka madartay waa la yaqaanaa waan naqaanaa waan la garanaya ninkuu doonaba ha ku tiirsanaado waxaan maanta iyo xilligan u sheegaynaa ciro iyo dowladda somaliland iyo wasiirka gaashaandhigga iyo janaqaalka somaliland inuu naga qaado ilaahay hadduu yaqaan warayso ninka war ilaahay haddaad taqaataan malaha nimanka isaaq lama dhaho ilaahay ma taqaantiin war nimanka isaaqee dowladda ow haddaad ilaahay garanaysaan aad islaamnimada garanaysaan aad garanaysaan dadka somalilandeegi inay wax mida yihiin oo madartay ay u siman yihiin waddanka iyo calanka war ninka ha laga qaado yuusuf iman ha laga qaado 24 saacadood ama 48 saacadood wallahi dadkaasi walaal bay noqonayaan gadabuursigaasi madartay buurta ka soo baxaya ku noqonaya diinku marna qoorta la soo baxa marna waa qariya marka uu qoorta la soo baxayo yuusuf iman buu og yahay marka uu ka maqan yahay meeshana qoortiisi waa laabanaya oo diin bay noqdeen raggaasi imikii waqtigan annagu haddii aan nahay ciise haddaan nahay somalilandee war dowladda somaliland waan ogol lahay iyada oo na xumaysay oo gadabuursi naga raacday oo wixii gadabuursi uu ku hadlay u fulisay ayaan weli hadda calankii somaliland aan sidanaa ninkaa meesha ka qaadaad kusoo gabagabaynaysaa hadal iyo dhammaanteed ninkaa meesha ka qaada waxaan ku gabagabaynayaa haddii ciro iyo wasiirka difaaca iyo jananku ay doonayaan inay madartay salil ay nabad ahaato amba awdal inay nabad ahaato haddii la doonayo waar ninkaa meesha ka qaad xataa waxaad keentaa ciro walaalkii keen xataa waxaad keentaa madartay janaqaalka walaalkii ha keeno xataa ha keeno ninka madartay defanska adu ninkaasi waa nin dhintay baad leedahay waa nin dhintay iyo joogitaankiisa shaydaan baa halkaa jooga nabadi ma jirayso waxba isaga iyo gadabuursi waxbaa ka dhexeeya way isku daloolaan ciidanka somaliland iyo gadabuursigaaba isaga xukuma daacadnimo ma jirto ilaah run naga hadli ma ribeynayno nacam ma lihin shalay hebel baa ciise laga qaadee hadalka waad dhamaysay abtiyo aniguna waxaan ku darsanayaa ilaahay haddaan ka yaabo ninkaa dhibaya ciisaa dhalay dadka uu taga ee wax uu soo weydiisana waa ciise anoo halkan magacoo ka sheegayn war ninkaasi nin maaragtay lagu sheego nin darajad sita maahin waa nin shaydaana oo dadka isku diraya wax badan baan khabaynaynay waa shaydaanka meeshaad ka keentay ciroy gee haddaad ugu timiday ka dhex qaad dadka waxaan ku darsanaya askarta marka ay madartay horjooge iyo ilaa iyo janaqaala ay tahay labada reer ee walayaala waxaa la keenaa nin aan labada reer ee walayaala midna ahayn yaa la keenaa waa marka cadaaladdu ay jirto waa marka ay sinaantu jirto laakiin dowladda isaaq ee somaliland waxaan u sheegaynaa inayna daacad ahayn cadaalad ahayn oo madartay ay gadabuursi la safan tahay ninkan baan ku eegaynaa 48 saacadood haddii shalay toole aad la safatay waartii dhacday ee 4 jeer dhacday tusanaadna ku diray ninka naga qaad anagu somaliland deemaan ilaahay وليسو إن شاء الله الله أكبر